نودستان waxa kaliya oo ka qaban kara waa GSU survey in loo kan militariga loo kan oo militariga survey loo dhiib title milka dhowr nooc buu kala leeyahay kuwa waxa la yiraahdaa maarta indenture oo ilaa 999 sano freehold waay marka dhulka laba title ma lahan kara qasab waa inay fake ah si ku waan kara marka hadii wasaaradda bixiso oo lacagta ay bixiso fake wasaaradda mas'uuliyadda qaadi waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan bakina maxay ugu diiday guriga bakinka wuu leeyahay markii approval kala sameeyay waxay ka kireen taariikhna waxay sameeyeen qoladan koolida iyo dharka waxaan keenay yaa laga kireenay store baa laga dhigay guriga waa la dhameeyay waa la galay still procedure-ki dhan lama raacay marka adiga lawyer-ka waxay ku qasbaysaa title-ka inaad hayso guriga waxa arkaysaa halkan ku yaala wuxuu leeyahay ceel kan ku dhagan ceel kan kalena ceel kan kalena ceel maxaa ka dhici karaa qofka architect-ka laga yaabo inay laaluushaayeen ayaa sidaysa doonaan ka sameeysanay wuxuu ugu talagalayaa 3 qol iyo 7 quarter and he will just do waxay rabaan bay sameeyay laakiin kuwa badan oo guriyo si fiican u dhisan way jiraan Soomaali oo aad u fiican inta qof oo gaaris loo xabaalay dhul daradeed ma yaro waxa keenaya dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda raadsanaya dadka isku kicinaya county-ga istaajin kartaa maxay ku istaajin kartaa county-ga way kala jarjari karaan wax iska fudud waay laakiin xataa markii qandaraas la siinayo waxa la siinayaa company aan magac lahayn awood aan lahayn باور أن لهن ماشينريز أن لهن خبرات أن لهن إنه واحد من كان leadership كاست إلهي كعب صدقين لولك هذا لو سمينا يا مانديرا تو نودستان هذا حاجة جدتك جدك سرسرتي هاي وات إز أب جدك لما تسكر رواي جدك بيرحي سوق compensation جدك جمرة أو هذا قرمان لهن بدي أنا أنكر ما تصنع وحاول تولوين كان فرحة بدن مار مالك استوى لقى سمينا political appointment وmadness وكريزي سكول مالها عيالكي طال مالها ماوينكي ماشي بي انت كو امولان بي كو ديغبخايين كو ديماناي marka what have you done for the society baadiina waa ka soo waday magaalada maadijin waxa lagu dhaarey wajeer iyo gaaris iyo mandera yeenan dooranin qof maaragtaaye magaalada iyadoo aan la deganeyn oo gabana yaa loo dooran laakiin tuug inta la dooranayo u imaanayo marka hore inuu wax hado been lama gaarayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر بعد ما هدي شو ورئيس كان مانتا وورئيسي آدي حيسو له وحن نصيب وله هني إن مانتا لفريسنو قريقان عبد الرزاق محمد كنا شقيستا عبد الرزاق أن كمباني أرنت مانتا وأرن حساسية وآدي ماركتي لو هذا الحياة وحين كوصل لسنت هاي حق دولكا دول إيبنتا شرعيانتا إيو لحاشة قريها سيدا أكتا هاي أرهم بدن أو لحريرة dhulka ama iibitaan guriyaha ama guri lahaanshada guriyaha ayaa aad iyo aad looga caabaday especially khaasatan dadka qurbaha ka imaaday in mar walba la dhaca ama dhul maartay aan sharci lahayn laga iibiyo arrimahaas iyo arrimo la xiriira dhulka iyo waxyaalaha la raba inaad maartay ka wantooda marka rabto inaad dhul aad iibsato ama guri aad iibsato arrimahaas la falaqayn doona عبد الرزاق aad iyo aad u mahadsantahay ku soo dhawaad Mahdisho سؤال شكواد بل عبد الرزاق محمد يوهي انتو نكسو جيدا ما هسنتهي ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق محمد هو اللوير مقالة نيروبي كشقيستو ما رتاي إلا دور 8 سنة كشقيسنا اللوير نيمو وحفيز وحن كله هاي مقالة نيروبي سيتي سنتر جميع موساكتيسا بيلدين ايدان هيوز بيلدين بيلدين دهورو انجليزكا دبق أفراد مقالة نيروبي وحكنا حفيزا كله مقالة جارس يو مقالة ماليندي كنت على حبت دينا كوست حفيز كلنا وحن كله هيدا مقالة مومباسا يو دي قبل هذا كلنا كشخص سيد اللورة كيسومو مركا تخصص كي جوا أونلاير نيمو مركا هدان أسي قدمنا أرنتا كهذا شيء كذا واجسة والله وأرن آد نور دبتي أو maaragtay ummadii cabaadkoodii waxa keenaya waxyaalo aad u fara badan أولاً وحكينا يا إن قفك جوري قد لسايا وهذا كهر جوري سود لسي
qof ka soo cararay mii ka soo cararay baadi ka soo cararay magaalada imaanaya qolo kale oo isla dhashay asxaab waxbay isla bilaabayeen gurigay bilaabayeen marka inay dhisaan ama islii ahaato ama ahaato Parklands ama ahaato South Sea ama Kilimani ahaato dhinac maarta Hurlingham marka waxyaalaha marka dhacay waxa waaye qofkii khibrad uma laha guriga dhismihiisi intay u badan yihiin 90% waxa maanta guriga intay gadaan guriga haddana furahooda dhiibo oo dadka lacagtooda maartay si fiican wax ugu qabto wallahi way yaryihiin aad bay u yaryihiin qolo hadda waan ku arkay Parklands maartay wax ka dhista laakiin qolo Hurlingham ka dhistana waan arkay wallahi aad bay u fiican yihiin qaar laakiin in badan oo de Parklands iyo Islii aad baa looga cawaaday South Sea iyo hatta Hurlingham meel kamid ah marka problemku u hore waxa weeyaan qofkii khibrad uma laha guri la dhiso abadan khibrad uma laha plaankii ma haystaan haddii haystaan guri kale plaankiisa guri kale lagu dhisaya marka social amenities ma laha sidii gurigii parking ma lahan common area ma lahan title-kii waa hal xaba marka hore hal xaba ku imaanaya ila guriga marka hore wuxuu ahaa hal guri oo meel ku dhisan waa la jijibiyay wuxuu ahaa marka hore single dwelling hal qof inuu dega ayaa lagu talagalay hal qoys gurigii marka waxay noqonaysaa in la jijibiyo oo laga soo saaro ka soo qaad taqriiban mise 50 mise 100 guri 100 qof baa isku lahaanaysa marka waxay noqonaysaa in loo bedelo wax la multi dwelling marka waa change of user waa number 1 number 2 waxa weeyaan in gurigii architect la soo sameeyo oo procedure la soo raaxo Soomaalida batata ma raacdo marka title-ku uu soo qaadaya lawyer buu u keenaya gurigii baan gadaaya waxay ku gadaan wax la yiraahdo off plan marka hore guriga gadaaya waa qofkan wuxuu ku gadaa beeca munaasab u yahay gurigii oo laga yaabo inuu jooga $100,000 yaa laga yaabo inuu dadka ka gado $50,000 mase $60,000 mase $70,000 mase haddii uu ka sii qaaliyo ka badiyo depending on hadda sidoo ku helo marka waxay u jeedaan waa cash-ka marka ay qaadanayeen gurigan dhamaashihiisa dadkii lahaay furihii loo dhiibi lahaay ku wareejintii lagu wareejin lahaay taytaladii la sameyn lahaay waxba ma ogow lawyer-kan maalinka ay u maadeen agreement karaan system-kii la rabay in la mariyo telefoonkii ma qabanayaan way cararayeen ila marka hore gurigii hal qof baa socdaa mase laba qof laakiin ilaa 100 qof asku waxaan u badan dad masaakiin oo maartay qurbaha ka soo single parents maamooyin deewayle wixii waa dib marka this is maartay waxa maartay u badan oo maartay problemka maartay oo meesha yeela waa ka iidira marka gurigi waa la dhameeyay waa la galay but still procedure-ki dhan lama raacin marka adiga lawyer-ku waxay ku qasbaysaa title-ki inaad haysid ilaa waxay ka wada dhaxaysaa 100 mar waxaan aragnay title aan lawyer loo keenin oo title-ki nimankii guriga dhisay ay loan ku qaateen hatta waxa la sheegay in gurigii bangiga uu ogshimay oo dadkii guriyaha deganaa dib dambe ay kaga heleen ninkina wuu cararay marka waxaas dhan waxa keenaa jaahilnimo diin la'aan cilmi la'aan qofkan ma diin ma barin fahanti diinna ma barin wax ka celinaya marka ma laha wax uu kala og yahayna ma laha everything waxa waa shortcut lacag ku bixi approvals-ki lacag buu ku soo qaaday gurigii qofka iska lahay been buu u sheegay wuxuu gurigii marka dhammaan ku hadan ku siinaya markii dadkii baa madax isla galay asagii wixii uu ka qaatay gurigii uu dhameeyay but quality waa shaking waxa kale oo hadda aad noo dhibaayo waxa markaan jaamacadda markaan wada aqrisanayay qof kasta wuxuu leeyahay muqtaqasus aniga lawyer-nimo soo bartay qof kale wuxuu soo bartay geology qof kale wuxuu soo bartay dhakhtarnimo markaan maartay wada iswareysanay waxyaalaha hadda loo cabsanayo Islii camal mesela South Sea guri waxa arkaysa halkan ku yaala wuxuu leeyahay ceel kan ku dhagan ceel kan kalena ceel kan kalena ceel maxaa ka dhici kara waxa ka dhici kara dhulka markuu qalalo dhagaxdi quake baa ka dhici kara hadduu earthquake ka dhaco sidii hadda ma dhul gariir ka dhacay ee Turkiga xubban guriga soo dhacan waa quality biyihii yani everything is not considered wax yani oo maartay procedure lama raacay marka waxyaalahan waa waxyaalaha maartay dibka keenay in dadkii maartay waxooda ay waayaan
yes mar waxa dhici kara gurigi waa la dhameeyay qofkii gurigu uu degan laakiin sabar loogadii ma haysto title dibki oo guriga ma haysto waayo mada title-ki intii la geeyay conversion laguma sameeyay lama soo bedelin sectional survey sectional title lama sameeyay marka kuwa ugu roon waa kuwa looyiriin title-adooda ay taala mada title-ki oo wali aan la kala qaybin kuwa kalena di Allahu raxmado waay marka Soomaalida marka waxa waaye waa bubble been bay isu sheegtaa way is dhacaan habeen imaalin bay is dhacaan diin meeshu ma jirto dhaqanna ma lahan cid ka qabanaysana ma lahan marka waxa loo baahan yahay marka institutional roadki ba Soomaalida baa baabacsan marka waxa loo baahan yahay wax laga qabto kulli fikrad ahaan waxaan ka dhiiban lahay in Soomaalida ay isu tashato magaalada Nairobi way weyn tahay meel kale ay raadsadaan dhulku waa uu yeelaa still waa la helayaa oo isteediyada kooda ay soo sameystaan sida Mareykanka Ingiriiska Yurubta loo sameysto meel madrasadeeda leh dugsigeeda leh iskoolkeeda leh oo waxooda ay ku haastaan waa hadda waxa isdii ka jiro waa qalad aad u weyn nololna ma aha waa nolol xayaato kale waa masantahay garyaqan su'aasheedu waxa weeye inaan noo sharaxda lacala darayna guri iibsado ama dhul aan iibsado dhul aan ka bilaawno guriga noo dambe dhul baan soo arkay oo la tilmaamay Parkland soo ku yaala Southsea ku yaala bal procedure-ga koowaad oo rab talaabada koowaad inaan qaado ilaa aan guriga ka dhisay kadib waxaan u iman doonaa saan u iibin doono iyo dadka maartay aan ka iibin doono taateelkooda bal noo sheeg dhulkiyaa soo aragtay bal talaabooyinka laga baahan yahay from bilawga ilaa guriga ka dhisaysa bal noo sharax awalan waxa loo baahan yahay guriga marka soo heshid dhulkii marka soo heshid in aad maartay qofkii dhulka iska lahayd qolkii lahaashidiisa uu ku siiyo waraaqdii uu ku siiyo title deedkiisa title baa la yiraahdaa wadankan title deed baa laga yiraahdaa title deedka dhowr nooc buu kala leeyahay kuwa waxa la yiraahdaa maartay indenture oo ilaa 999 sano waa freehold waaye kuwana waxa weeyaan 99 sano ama 100 sano laga yaabo qofkii ku fadhiyay inuu 30 sano dhameystay ama 60 sano dhameystay 30 ka hartay wax dhiba ma lahan 30 20 okay waa wixii ka soo haray hadii ka soo hareen because always waa ku darsan kartaa waqtigeeda marka waraaqdii baad soo helaysaa waxaad oo imaanaysaa title deedkii lawyer baad oo imaanaysaa lawyerka asaga u taala marka inuu baaritaan ku sameeyo dhulka iiga baaritaanku uu ku sameeynayo waxa waa inuu la aado Ministry of Lands uu soo ogaado dhulkan yaale masaxba title qofkan wata masaxba ma waxa lagu leeyahay lacag baa miya lagu leeyahay oo loan baa lagu leeyahay ma dhaxal buu gurigan u yeelaa oo ma isku haastaa qofkaas gadaaya gacanta ku sit dhulkan asaga xaq mu u leeyahay inuu gado taas waxa ku sheegi kara marka qof looyiriintan waa badan yihiin Soomaalida ma sha Allah tabarakallah aad baan u badannahay xafiisyadu way badan yihiin isliibaad ka heli kartaa kuwa jooga badan aqaano townkay joogan Hurlingham bay joogan looyiriintu waa badan yihiin marka waxaan dadka ku dhiirigelin lahay waxaaga lawyer oo la tag ha ku baaro ha saxa waxaan xalaal miya ma soo xaraan dhulkan title-kiisa fake miya ma soo original marka dhulka halkaas laga baaro waxa loo sii baari karaa dib loo sii dhici karaa waxa la sii aadi karaa survey of Kenya oo mapka area inta la hela yaa la ogaan karaa dhulkan meeshas uu ku yeelaa dhul planka aad wadata ee dhulka cabirkiisa survey ahaan is leeyahay marka taas saxdid ha nacam waad sii socon kartaa ilaa ay hoos u sii dhici kartaa history wax la dhahay ogaanaysaa yaa lahaan jiray boqolkii sano la soo dhaafay meeqa qof waa lahayd ma hal qof waa lahayd ma 100 qof soo maray ma 10 qof soo maray inta gacan soo wareejisay inta bangigu soo maray loo dhigay loan masana loo dhigay rahan way soo bixaysaa taas marka waxa ku kala cadeyn kara lawyer markii la cadeeyo dhulka la ogaado inuu awal ka soo qaad dhulkii loan buu leeyahay hadduu loan leeyahay waa in la hadla bangiga loanka bixiyo oo la dhulkan xasana gadaa ama Xuseen oo loan adig ka qaatay raalli ma ku tahay in la gado bangiga wuxuu ku leeyahay raalli baan ku ahay oo lacag waxaan ku leeyahay 100 milyan ama 10 milyan ama 5 milyan inta uu ku leeyahay waa inuu bangiga la soo geliyo waa lagu daro loo sheego oo bangiga lacagtiisa la siiyo hadduu ma gadi kartiin hadduu ka ma gadi kartiin asaga waa inuu cadeeyo labada qof ilaa waxa qofku wuxuu xaq u leeyahay dhulkiisa inuu gadi karo xataa hadduu bangiga u hayo bangiga wuxuu xaq u leeyahay lacagti uu qofkan ka qaatay inuu heli karo asaga bangiga lacagtiisa waxad marka waa inuu ogaado
haddii lacala ma gedi karto wuxuu ku dhihi karaa haddii uu kees galay oo qof kaloo saddexaad uu soo sheegtay dhulkii mase aabihii baa dhinto oo dhaxal buu dhulkii galay laba waalal baa isku haysata oo dagaal baa halkaa ka dhacay marka siyaabahaas waay marka waxaas in la saxo waa markii la saxa Kenya sharciga ka jira waxaa qofna waa inuu dhul gadaayo qofna waa inuu gadanayo qofkii gadanaya haddii la helay kii gadayna la helay wixina ay sax yihiin waxaa loo diyaarinayaa marka sale agreementkii heshiiskii oo lagu kala gadi lahaa lawyer ka diyaarinaya marka waxay noqonaysaa dhulkii beecan aan ku gadaaya ma fahanti dhulkii beecan aan ku gadaaya intaan hadda ay siinaysaa intaana waqtigaas baa ay siinaysaa oo 90 bari gudahood mase 60 bari gudahood masana sanad sidii labada qof ay ku heshiiyaan marka muhiim waxa waay dhulka la gadaaya ma qof baa degan mase qofkii markuu laga gado qofkii waxa loo baahan yahay in dhulkii oo banaan oo cidna ku haysanin reerkiisana ku haysanin qof kalena uusan sheeganaynin bangiina uu sheeganaynin yaa loo baahan yahay qofkii in qofkii clean title lagu wareejiyo iyo macal dhul oo eber oo cidna ayna ku haysanin waka marka qaar waxaa jirta marka dhulkii inuu gala dambi oo fraud qof kale uu title la soo sameeyay arintaas wuxuu tagaysaa qolada oo basaasiinta oo masaba la yiraahdo Directorate of Criminal Investigation xagga land fraud la yiraahdo department kaas baan leenahay oo wixii baaritaan ku saabsan xagga criminality haddii laba title uu dhulkan leeyahay qof kale title fake soo sameystay masana ay arrimaha ma artay xag dambi uu soo gala qolo ku xil saaran baa jirta hawsha markaan soo suubiya search oo aan taga idaaradda dhulka information ka isiinayaan information sax ma yahay mise waa information because maxaa maqlay maxaa khidin kari ina sometimes qof intii soo search garay wax walba ay sax noqdaan gadaalna laga arko ina wax waraqo kale ka sii horeeyeen oo wax la isdawmay xagga idaaradda ma dhacdo wax meel laga sheegi jiray waa jirta double allocation sida maarta dhulka Kilifi Coast iyo waxyaalaha noocaas laakiin magaalada Nairobi iyo meel kasta wadanka Kenya way adagta dhul inuu laba title lahaado absolutely way adag tahay idaaradda tagto wax saxad keenaysa laakiin marmar qaar waa laga yaabaa inay title fix soo sameeyaan laakiin way ka boodaan waxay dhaanka ma sameeyeen ayuu sameeyo wax qarribay laga yaabaa inay dhacdo laakiin dhulka wuxuu leeyahay measurement buu leeyahay wuxuu leeyahay dhulkii waraaq uu leeyahay marka dhulka laba title ma laan kara qasab mid waa inay fake ahaato سيكون وين كلام ما كدايسي وزارة بحسه أو لعقتي أي بحسه فيك وزارة دي مسؤولية قاضي أي كان لجو حرايا ما بحيان كيسو صحيح فيك ما بحيان فيك ما بحيان فيك ما بحيان فيك ما بحيان لغاية يابا نمن توجو أو بروكا أي واحد كسر جايستان بين النظر أو سيستم كجراناي خوفك بيسوي ذاين وحكينا من ماشي وزارة دي كيناي وعيدا واكن إنك بكوها جاجو واحد توجني ما مركب هو توكاس توجنا وين لصاقبت لكن توج وحول عيف كنا قلنا مركو لوير تاجنيا لويرين تو جرنا عندي ولا جرنا مش خوفك وفيق وتي خوفك لا وان كلا نقالنا لكن خوفك الشعب كما جرن كرو اوكي وما سنتي قريقا ستاج كاسوسو بيسي wax walba way saxsan yihiin نعم title deed ki agreement ki waa diyaarsan labada qof ki gaday ki kale نعم title deed ka lisiyay dhulka uu banaani نعم bal meesha aan ka bilaawno ilaa guriga uu ka dhismaayo oo 15 floors uu ka tagay macnaha waxyaalaha laga baahan yahay waxyaalaha approvals ka waxa laga baahan yahay horta markii hore dhulka markii title ki inuu horta magacaada ku soo wareego asoo ki kale ku jiran ما بربا كسته وهشيس بربا واحد عكر تاقف كي لهاي بينو سن كاجدين وتكون هشيسين جوريه سي جوين بنش واحد هان ومركز تايتل كي مال بالا دقاي رهن هان بالا دقاي لبعض اللوير بكون شيء نسميه كمية هاينا تايتل لكن قولك والله فصحة يا صح قف بالا فصحة قف كده سلهاي مركز قف كده سلهاي وحسوق أنا مركز هور قلدا من الشيء بيده سيتي كانسل كوكو حسوق أنا ليس كوهر سوق أنا وهودين واحد يراد وإنه ماشي ولاميري يتنجلك وصمين كرا هذا درب اللي هنا بورك لو قوري كرا سوار كلا صار كرا قريب على كان كسر صعدا هودين هودين هذه هالقريب وكي اللي مرت دوالين كوين جازات من تحلى هذا اللي قسم يلا للشعب بحيه هذه قف درس كم مثلا قلا أي كقبته إن ماشي دبق لقى دسي كرا إن كلا وإني أجادان
oo dariska loo sheego daris duu dabaq ma dhisaysid ka war hadday meesha control ay tahay la dhisi kar lama dhisaayo ma control deehan oo dariska u dhaha hadda spectrum ku aragnay ma dhici karta way guriyahooda gaaban yihiin ha ma dhici karta qof Soomaali imaanaya way jirtaa ha way dhamaatay way dhacda way diidayaan laakiin heshiis way markii dambe way dhamaanaysaa way haday dawladda approve gareysay ayakana dib uusan u keenaynin dawladdan approval ay sameysay way ku qasban waxa laga hadlayo waxa waaye miya qaylida aysan dhibin waa dariska iyo lagu xad gudbin sewage camal biyaha meesha muuqaadi kara of course shakhsiyan ani ahaan Cabdirasaaq ahaan waan qabaa in maaragtay la shaqeystay waxyaalo qaar kood waxa dhaafka sida guryaha dhaadheer oo aad u dhaadheer la dhisay Cabdirasaaq ahaan aniga ma qabi because aan guryo badan baan dhisnaa oo lawyer aan u ahay but client ka title-lada iyo documentation-ka waan u diyaarinaa markii la soo weerarana waan difaacnaa oo maxkamad baan aadnaa oo qolaha oo dhaalimiin baa jirta oo Soomaalida aad u dhibto oo madow baa jirta oo lawyeriin xataa oo dulmaan Soomaalida inay dulmaan u soo jeedaan qoladaas waan la dagaalnaa habeen iyo maalin baan la dagaalnaa waxaan la dagaalnaa qolo kale oo Hindu oo ayakana dhib badan waan la dagaalnaa waan ka dhicinaa Soomaalida wixii Soomaalida waan u gargaarnaa wixii tabartaanada waan u gargaarnaa waan ka dhicinaa wixii cadowga waan ka dhicinaa laakiin naftinkooda isuma roono ayaka dhaxdooda ma artahay isu rooneen ayaka dhaxdooda isjaajuusaya ayaka dhaxdooda ma artahay isdhibaaya ayaka dhaxdooda isu geeya qolada ma artahay terrorism police isu geeya is cadaaba marka laakiin waxa la ilaalinayo waxa waaye dariskayaan lagu xad gudbin iyo waxyaalaha normska ida la ilaalinayo laakiin wixii hadii marba ay la shaacbixiyay in la dhiso waa la dhisayo because ayaka naftinkooda hindida way dhisanayaan hadda Diamond Plaza waxa iska leh hindi waa dabaq dheer 110 dabaq dheer oo waxa jirta hindi ay dhisanaysa midda kale waa iska normal waa waaxin iyo ma arta ficil waay yani Soomaalida ay soo galayeen ugu soo bilaarin waxas waay laakiin Soomaali qowl la karaya ma aha why he can lose up to $1 million or $1 million to achieve certain things asoo ka faa'iideeyay marka taasi waa sheeko mar kale waa anyway maxaan joognaa hadda waraaqii hore ma soo qaadatay title-kii aad lagu soo wareejiyay waxa u tagtay qolada municipal council-ka allotment ku siiyeen maxaad xiratay meeshii baad xiratay board ku dhijisay approval-kii architecture-kaada u tagaysaa architecture-kaagi wuxuu ku soo sameeynaa sawirkii aad meesha ku dhisi lahayd sawirkaas baad waxaad geynaysaa approval baad u geynaysaa waa in lagu saxa oo lagu ogolaado city council-kii waa in maartay approval-kaadi lagu saxo waxaagi aad diyaarsatay waxaad la imaanaysaa marka dadkii loo baahnay quantity surveyor engineer-kii meesha dhisi lahayd architect-kii meesha design gareeyay teamkaaga marka isku heshid oo hawshaada aad bilaawo heshid yaad galaysaa marka dhulka inaad qodidoo dhistay bilaawdo Soomaalida approval-ka maxay lacag ugu bixisaa Soomaalida approval waxa ugu bixisaa waa dhaqan wadanka ka yeela waay Soomaali iyo gaal iyo Hindi kulli waa dhaqan nijaas okay lacag badan laga qaadan lacag waxa jirta ku baxda dawladda oo dawladda ay qaadato approval-ka oo taasi waa xisaab laakiin xisaabahan kale aniga kulli intaan qaaday ma bixin laakiin waxaan maqlaa ma been baa ma run baa ma Soomaalida laga yaabo xataa ma aragtay kuwa guryaha dhisay inay dadka ay ku qayaanayeen inay dhahayn lacag baan laga qaatay Allah waclam bimraadi laakiin waxay sheegaan in laaluush ay bixiyaan Soomaalida laaluushka way bixisaa oo way u fududahay in lawyer mase taqtar mase professional place oo lacag ku bixiyo waxa kaga fudud inuu laaluush bixiyo way jecel yihiin dhiigooda ku shaqeeya hol fududeys bay dhaan waxaan arkay Soomaalida intaan dad la soo macaamili jiray Soomaali wax ka masuq badan aad iyo aad wadadan ka dhashay laakiin meel walba had bariyaan waxa la keenay wadanka wixii ka socdo fraud afar qof hadii dawladda soo xirto mid waa Soomaali waa macquul gal okay architect approval-kii ku hagaajiyeen architect teamkaaga sameeysanaysa guriga dhisi lahay oo iskugu jira dadkaas tirada badan uu ka kooban yahay architect-kii meesha design gareyn lahay engineer-yadii oo dhisi lahay engineer-yada waxa kamid ahaanaya civil engineer-kii oo guriga superstructure dhisi lahay mechanical engineer-kii iyo electrical engineer-kii wixii inaad la imaatid waay tekeena marka company waxa jirta waxa soo dhan haasto oo Soomaali marka geenis qasab way joogan Soomaali hadda amal nin aad u qiimo badan jooga Soomaali architect oo la yiraahdo Cabdi Ismaaciil ma sha Allah designer wuxuu sameeyay ajiib guriyo high end buu dhisaa laakiin Soomaalidu ma maleynaa inay ninkaas ay raadsadaan Soomaali hal raadsadaan ninkaas Cabdi Ismaaciil architect
اوكي waraaqdii maxaa geysay ministriga oo design-kii laakiin cabdi ismaaciil kelima injineerada iyo architectada way badan yihiin waana saaxiibadii kuwa badan baa jooga Saudi degan Cabdirasaaq baa jira way fara badan yihiin wiilal badan baa jira oo xabadkaas oo xayisiin iska raf maya xayisiiniga ma waan aqaanaa wax badan baa maartay iskala shaqeynaa project so I know him on one person on a personal level kuwa kale ma garanaysaa kuwa kale islamaan shaqeynaa badankood laakiin asaga at least high end project qaraabadiina ma leeyahay qaraabo minhin wala Soomaali xukiya ma garan maqaawla wadaan Soomaali xukiya ma garan okay waxaan isku baranay city hall buu ku jiray Nairobi City County ayuu ka ahay one of the top guys oo architect qolada geysay municipalka waa lagu soo approve gareeyay nacam waa la imaatay nacam approval ka malaga baahan neema aw qoladii qasab neema waa soo maraysaa qasab bigo dariski way approvalada waa badan yihiin kulleem ku sixi kara laakiin waxaan ku saxay wixii muhiimka approval waxaad kaga baahan tahay of course municipality kala baxdiin municipalka waxaad kaga baahan tahay kii kale neema sida qaylida iyo waxa sito qolo waxa jirta la yiraahdo NCA National Construction Authority waa muhiim waad u baahan tahay waa inaad ay kan approval kood waxooda ka soo heshid waay gooni mid kasta gooni aad ugu tagaysaa waxay ku xiran tahay hadana waxa dhisaysa hospital yahay amal procedure ka hospital hadda guriga taagan tahay marka wadooyinka hadana ku xiran tahay wadada aad ku dhisaysay miyaad gashay neema adeeyta wadada wada kasta waxa leh authority oo wadanka goonida haduu highway-ga ku yaala waa Kenya National Highway Authority haduu xaafadaha oo maartay magaalooyinka ku yaala waa Kenya Urban Road Authority haduu de tuulooyinka meelaha guriga ku yaala mesela meel luuq waa Kenya Roads Authority marmar qaar waxa laga yaabaa inaad faraha isla gashiin qolada korontada power ha wada ay ka agmarayso waxa jirta waxyaalo yiraahdo way leaves amal sida contract amal korontadii meel ay maraysaa jirta waqti waxa loo baahan yahay in certain space inaad kala fogaatiin daris baad noqonaysiin marmar qaar approval waxaad kaga baahanaysaa qolada military a good example waa waxaad ka dhisanaysaa dabaq ka soo horjeeda ka soo qaad xarada militariga ee DOD mesela Langata mesela Moi Airbase waa in approval ay ka heshid oo ay ka saxan approval waxa labaatan dhan markaas approval waa badan yihiin because waxa ku xiran meeshaad kaga dhisanaysa ilaa meeshaas waa meesha wadanka maartay xuduntiisa laga maamulay so certain way waxay ku dhaayaan dad doonaan daaqadaha halka u jeedi marka waa halkaas saasi maartay idana waa approval bay u baahan tahay hada xarka misaayka DOD ma ku tukanaysa baabuurka guriga baabuurka inta u jeedin baabuurka waxa lagu leeyahay military dhinaca u jeedin halka dhinaca u jeedi so approvayaasha kulli soo qaadatay neema kenha kura railway waxa u baad marka iyada meesha iyada laga baahan depend waxay ka meel kasta waxay ku xiran tahay meesha ku taal hadda ka soo dhisan ka soo qaad oo kale soo kima approvalada way iska yar yihiin marka approvalada of course waa u baahan tahay basics ku basics de waxa Nairobi uma baahnayd markaas Machakos baadaysa Machakos County waa approvalada ka soo qaadanaysa of course neema waad ka soo qaadanaysa laakiin sida maartay loo ilaaliyo loo meelana ka soo qaad hal guri oo kaada dhisanaysa haddaad bilowd intay ku soo gaarin ba laga yaabaa inaad dhamayso qolada ku xiran tahay qolada ku dhisaysa iyo sida ay ula macaamilaan qolada sewage-ka iyo biyahana oo waa inaad la xiriirto qasab waa inay ku furaan shaqeeyar maaha marka Soomaalida waxa soo saaw badan oo loo baahan yahay in loo fikiro laga shaqeeyo yey waxay rabaan inay maarsi ilbirqsi hatta daba guri baan dhisay shan guri baan dhisay wax uu ku og yahay meel lagu dhisay malaha lacag uu bixi suuqa sarifku jooga misdii kartaa mar aan tweet ka qorna wuu jiray waxaan marayay meelahan Jam Street-ka bidix midig waa dabaq dheer hal geed kuma yaalo nacam markaas waxaan ku qoray hadaan wasiir ahaan lahaa wasiirka environment-ka qofkii hal guri dabaq taago aan ku qasbilaa ma ku amri lahaa ina 10 geed qayma lama laha geedka dadkan waan ku sheegay Soomaaliya baa la yiraahdaa waxna ma qoraan waxna ma aqriyaan pakina maxay ugu diidan guri badan aan deegax jira pakina waa tuugo de guriga pakinka wuu leeyahay markii approval kala sameeyay waxay ka kireen taareegelna waxay sameeyeen qoladan koolida iyo dharka iyo waxan keen yaa laga kireynaa store baa laga dhigaa marka dadka guriga iska lahayd gatay yaa la rabay in arinta ku doodaan pakina ma laha maanta gaari waa laga xiran inta jira laga xirnaa marka waxa loo baahan yahay guriga in laga sameeyo hadda waxa loo baahan yahay maybe sharci hadii la soo saaro oo lagu qasbo in guri kasta waa la sameeyo kara gaari kartaa geeri qiimo lama laha ma ogo geed qiimuhu leeyahay haye guriga marka hore uga soo carro ay halkaas meel dar
دي غلوها نوجين meel daran buu ka soo cararay soo gubtay geed qiimo lama laha حضرتك أنت كل شيء ما دستان ما يقولي dadka وأنت وضع كل شيء maya fiir saaxib dadka guryaha Kenyaanka guryo way dhistaan way ku leeyihiin isli a good example is my client haddaad fiiris guryahooda xataa guryaha kama dhisna Nairobi xataa kama dhisna Europe شرعي واحد بيراعي sharci wax kasta raacay baa quality the standard everything guri waxa arkaysaa isli ku yeelo dabaq bakinkiisa kula dabaq ugu dambeeyo ugu kor oo lift uu qaaday baabuurta ما العروق عيارها طبعا مواجهان وحيل waxay ku xiran tahay qofka dhisay ku xiran tahay waxaan ka hadlayn 90% dad waxba aan aqoonin way mana akhrin aqaano mana qori aqaano where is in the society marka سؤال كلا جرتا waa qofka dadka laga qaban lahay سؤال كلا جرتا ha قف الدبق تاعي نعم ثلث فلور ha أنا عند بالك هاسو جلسي نعم أتريس فيو على هذا exactly maalintii dambe ku kala intuu imaada ha ku agdajina dab dirishadii ku nabaya ha qofka taa ma neefsan karo ma neefsan karo mala xataa nal mala guriyaha waa in ay nalkooda shidnaadaan 24/7 hataa marka network ta maqan qarkood network ma qaban nacam network ma lahan gurihii maartay waa mugdi because dadkan waxay ku dagaalamaan waa space marka waxa loo baahan yahay waxaas dhan the whole thing is waxa way hadda maanta la joogo guriyii aan lagu gadi jiray oo client-ka aan kala gadaynay $90,000 $80,000 wallahi billahi maanta waxa lagu gadaa $50,000 qiimo soo dhacay wuu soo dhacay because marka horeba qiimihii lagu gadanayo fake buu ahay it was a bubble like wixii ka dhacay maartay ka dhacay Mareykanka bubble ka dhacay New York ha Dubai wixii ka dhici jiray 208 kaas amal waa سؤال كلا جرتا نعم سؤال وكير دوانتي كو كلا maxay u baahatay just general knowledge نعم markaad isli waxaan ka helay meelaha Soomaaliya ay degto ha one bedroom ay lagu dhaha 50,000 meelaha kale markaad tagto one bedroom I mean 550 50,000 waxaad ku heli 4 bedroom 3 bedroom true guri aan oxygen fiican lahayn aan lahayn bilac aan lahayn oo network hada iska yar halawsan yahay oona la yaryariyo hal sir galayso oona meel carruur ku ciyaaraan lahayn baki gaariga maalmo laga xiranaya banaanka siigada ama lagu dhacay mintooda ku dhacayso way 50,000 ama 70,000 ama 80,000 3 bedroom 90,000 waxay rabaan inay hal meel ku wada noolaadaan halkaas bay shaqadii ay tahay baasha cid orkooga markaas demand-kii baa badan baahidii baa badan guryaha loo baahan yahay marka nin doonayo ma lahan in gobol kale ama meel kale ay aadaan wixii halkaas bay noqdeen marka baahidii baa badan soo saas way marka isku raadsanaa waxaan isku raadsanaa dawladdu uma sameeynin infrastructure Soomaalida oo gobollo kale looma sameeynin ayakina maynan fahmin wali maskaxdooda may fahmin in infrastructure-gan camal ay u baahan yihiin ay ka dhigi karaan meel u jirta isli 20 kilometer waa laga heli karaa meel 20 kilometer u jirta oo isli intay ku fadhida qiyaasteed misna in yaro inta hadda alhidaaya camal intay ku fadhida intaas waad heli kartaa oo dabaqada ka dhistid nidaam loo dhiso la nidaamiyo qurxiyo la istaajiyo oo dugsiyo laga dhiso iskoolo laga dhiso madrasooyin laga dhiso masaajida laga dhiso oo meel quman oo dad si nolol fiican oo xaraga leh loogu noolaado waa la sameyn karaa laakiin waxa way isma fahansana wali Soomaali wali may bislaan wali meeshaas may gaarin heerkaas wali may gaarin adeeg Soomaalida markii loo sheegana wuxuu ku leeyahay maxay ugu jira nin marka fahansan oo arin dan guud aan ka shaqeyna dhahayo ma fahansan oo Soomaaliya dan guud wax ka jira ma garanayo waayo marka horeba ninkan waxaan ku dhaw waxna ma baranin diinna ma garanayo hadduu garanayo in yar buu ka garanayaa maadina ma garanayo mana akhrin karo mana qori karo ku qoreen oo jaamiciga naftooda isku sii u dhaqmaan uma dhaqmaan uma dhaqmaan waxa dhacay waxa waaye capacity ma lahan waa la canjilaya waa la caynaya qofkii waxa lagu leeyahay waa soo baratay maxaad haysaa shiidka tahay lagu leeyahay of course adiga lacag baad haysataa lacagtaas maxay ku tarto waay waxba kuumay tarin maxay waxba kuugu tarin haddaadan ilmihii ka qabsan lahay aadan soo barbaarinin lacagtaas waxay tahay ma laha tada kale Soomaalidu waa isdhacda 24/7 waa isdhaxan waxba kama jiraan wuu ku imaanay wuxuu ku leeyahay ninkan noo kala qor $200-300 oo $100 aan ka qaadanaya 6 guri baan siinaya
he will never deliver ma siinayo sidii run about an exit lane buu soo wareejinaya we don't do that waan soo noqon doonaa arrintaas titleadii I mean approvalskii neema wax kulli waa soo qaadatay architecture iyo maartay civil engineer all maartay dadkii guriga dhisi lahaa kulli waa keentay what's next guriga inaad dhistid waay oo nidaamkii lagu talagalay ee qardaastii ku qorneed la soo ila raacday Soomaalida ma raacaan guriga markay soo bilaabaan asagoo approve garay waraaq soo approve garay ma raacaan 3 bedroom bas lagu talagalay 2 bedroom buu qortay marka hore 4 bedroom buu ka dhigaya that's why cariirigu imaanayo koronto la'aanta aw dawladda rab inay fiiriso oo dawladda ma fiirinayso dawladda war kama hayso dawladda ana wixii la approve garay ma soo binin 2 bedroom aan ku 3 bedroom waxa u qortay u dhistay nobody even knows that dawladda meeshan capacity ma la dawladda waxan bubble waay dawladda ma waa lahan that I mean capacity qofka architect-ka laga yaabo inay laaluushaayeen ayaa sidii doonaan ka sameeysanay wuxuu ugu talagalayaa 3 qol iyo 7 quota then he will just do wax rabaan bay sameeynaayeen hadda jeer way bedelaan lacag aan ka soo qaadna laakiin kuwa badan oo guriyo si fiican u dhisan way jiraan Soomaali oo aad u fiican oo guriyo waaweyn dhisan oo ka waaweyn ee pensionetka waxaan ku arkay Kilimani hal ila ma sha Allah hal sidaacad kaate oo si fiican u dhisan give them a shout out maya wixii wanaagsan waa inay maya way jiraan wallahi way jiraan in Saciid Fanax la dhaho oo Kilimani guriyo ka dhis gurigiisa aan arkay aad bay u fiican waaweyn ma sha Allah I happen to live there for a while ما شاء الله وقريس ووني let's say waraaqihii maxaa raacday architecture wixii wala kulli waa raacday naam gurigiisa lagu gadaa markaas off plankii dadkii Soomaalida marka waxay sameeynaayeen standard ma laha sida hadda Hindida standard buu leeyahay maxaa standardka marka hore beec buu qabsanayaa uuna ku gadaaya sax wuxuu ku leeyahay gurigeyga ani waxaan ku gadayaa 20 milyan 20 milyan uu ku gadaa shilin kama dhimaan haddaad cash la imaata wuxuu ka dhimayaa $1 mise $2,000 wax yar oo ma artay oo macquul gal oo ma artay aad shaah ka dhigatid hatta furniture aan ku gaday Soomaaliga markii horeba guriga 20 milyan wuxuu ku leeyahay 10 milyan aan ku gadaa ma 15 milyan 5 milyan buu tuuraya 5 milyan markuu tuuro what will he do quality it will affect the quality of guriga dhisay quality sida lagu rabay uma dhisaayo way guriya la rabo in lagu gada let's say 15 million ama $150,000 sorry $150,000 buu wuxuu ku gadayaa wax ka hoose soo Soomaalida do undercutting markuu sameeyay ninka lacagta intuu ka keenay lacagtina cunye lacagtina guri iyo wuxuu sameeyay iyo wuxuu kala bixiyay quality marka waxay noqonaysaa inuu guri kale hadana qaato guri kale uu qaato guriyaha kale lacagtooda kan ku dhameeyo marka waa merry go round ka soo markaas ay ku gadan Soomaalida kuwa ma jiraan guriga inta markay dhulka qaataan wax walba habeystaan inay dhistaan alaf si iibiyaan mise dadka ka soo qaadan dadka lacagta ka soo qaadan guri lagu dhisaa hada dad maartay cadad ama loo baahnaa dadka soo qaaday wayso guriga uu istaagaa marka waxay noqonaysaa inuu lacag soo qaado oo guri kale u qabsado saddex guri afar guri isla wada markaas wuxuu leeyahay intaas guri aan dhisaaya lacag buu leeyahay hebel lacagtaas buu leeyahay then he will do social media advertisement and what have you it doesn't go down well to exactly what is on the ground horta aad maxaa loo sheegtaa balanta ay qabsaan dhahaan laba sano ma sameyn karaan because ma hayo qofkii lacagti ma hayo way dibeysan yihiin because marka hore been buu sheegay there's no one who can say the truth and dhihi kara guriyahan aniga beecasan ku gadaaya my price is different marka hore he is competing with Hussein Hassan Ali understand tartan ay ku jiraan there's no vision there's no design hatta ceeb ma ina gurigaas waxa la gadayaa 10 million anikayga 30 million aan gadaaya what's the problem qaada ma da niman waxa jirta guriga soo dhiso qaali gado and I used to wonder with them why are they selling but you happen that guriga dhan dabaq dhan waxay ka dhisayeen 36 guri horta quality wana daan Abdulrazaq Sharif ma sha Allah he has done couple of houses in the State House and dadkan kulli soo diray maya wallah I'm trying because I know them you can ask me I know all these guys I wouldn't say but you have to say where the truth is because hadda ninka dadka qurbaha jooga guriga ma gadan karaan that guy will sell his house at maybe $500,000 can you buy or $1 million this is what I'm talking about
because marka hore meel Soomaali uu ka dhisaya 100 guri asaga 36 ka dhisaya oo nidaamsan hagaagsan swimming pool qaba gym qaba yes social media caruur meel ku ciyaara masaajid yes qolada hadda aan ma jira mar la yar shaqeeyo oo la Minara Homes yes hadda Minara I know they are my clients lacag niga qaada they are my clients guryaha dhiseen ma sha Allah masaajid gymka dumarka gymka ragga swimmingka inta guryo aan tagay way qabaan oo waxa laga qayla beecooda waa saashiga bas saddex fiican dad is beeco qasab beeco waa inuu kor ahaado because the amenities has to go in tandem with waxaad samaynayso now guriga waa la dhisay for example gurigi hal title deal horan lahayd hal title u lahaa maxaa soo gashay 30 qof soo gashay 30 qof guriga ownership say u lahaanay ownership waxay u lahaanaysaa very simple waxa loo sameeynaa company oo gurigi maamulo wax la isku leeyahay jirta oo guriga adig iridaada leedahay laakiin liftka biyaha guriga soo fulaya ee kor intay fulaan u soo dhacaya guriyaha dhan balkooniyada laydka oo banaanka wasaqda la tuuraya nidaamka hadii meel ilmaha ku ciyaaraan ay leedahay waxaas dhan waa isla leeyahay waxa loo baahan yahay marka dad waxa maamulo lacag waxa jirta la yiraahdo service charge iska aruuriyo marka company-gaas la asaasaya waagi hore company-gaas la asaasi jiray title-ka company-gaas lagu qori jiray dad baa loo sameyn jiray oo guriga u dhex degan ilaa 3 qof 4 qof 5 qof oo maamulo committee kamid ah sax 30 qofna title-kaas lagu wada qoraya hal title imisiin anigu wani waagi hore saasay ahaan jirtay title-ka may qofku waxa la siinaa liiskiisu leeyahay inta liiska gurigan ka soo hortaad leedahay laakiin title-kaas ama title ku noqonaya title-ka waxa la dhigaa land guriga dhawada iibinayaan aniga shakhsi ahaan waad iibin kartaa waxaad ku iibinaysaa title ku noqonaya sale agreement liiska aad lagu sameeyo hadda laakiin way bedeleen waxa jirta wax la yiraahdo sublease iyo waxay dhahan sectional title-ki waa la celinaa block title wax la yiraahdo conversion la yiraahdo lagu soo sameeyna waa la kala jarjaraya kaliya waxaan lahaanaa kaliya title la lahaanaysa ana kaliya dabaqi qolkiiba is one and the same tii horena waa on the same waa sectional title baa la yiraahdaa there is a sectional title there is the title deed there is the indenture there is the leasehold different waxaan leenahay system of registration of land dhulka hadda ka soo qaad ku yeela dhulka masaayini camal hadda ilaa iyo maybe 30 40 50 kilometer title waxaad helaysaa 999 sano waa dhul beeraley loogu talagalay ilaa qofka maanta dhan ma soo bedelan karo dhulka hadda aan ka imaado camal northeastern waa community land dhul iska wala fasaxay oo maartay nimanka wadankaas waagi hore ay dhahan yani Kenya yani jid loo sameeyay wixii gaaris xaga ka jira yani aan ku reebno moogtahay marka wax title u leeyahay malahan magaalada sida gaaris camal iyo jeer laga yaabo inay title laba qof saddex qof dhowr qof ay haastaan ilaa iyo wixii magaalada ku yeelay yes waana title baan ku leeyahay magaalada gaaris yes but wixii ka baxsan waa iska free oo saa doonta u degaysaa nidaamka ma jiro dhibkaasna waa keenay Soomaalida keentay marka hore Soomaali baa madax ka ahay haddana Soomaali baa madax ka inay dhulka kala jarjaraan oo nin kasta dhul title la siiyo uma diyaarsana uma bisleysna taasna waxaan leenahay raga county government ka haasta ee Northeastern Ilaahay ka cabsadana waxay leeyihiin department oo survey dhulka hagriyana ha kala jarjaraan nin kasta title-kiisa ha qaato hadduu asaga ha gado hadduu dega asaga hadiga isna about qabiil waa been waxas qabiil kala isticmaalay let's say certain qabiil baa halkaan degan gaaris ka soo qaad waa cuuliyan waa kan bullshit u kala jarjar say doonaan ha sameeyay mase kala jarjar and then say ya title haysan simple dadka gaaris joogo yariin hadii loo fiiriyo dhulkan kale but nidaam kama jiro dadka halka joogo tuugo waa gaaris oo jeer mandera marsabid you know all these things uma jeedaan because ma fahansan still hada dhibkan oo nagu haysta hada gaaris oo kale for example caqabado badan baan ayaa ka haysto xagga maartay title anta arkaysa last week mate case baa jira oo dad badan isku laayeen waan arrin soo socotay for a very long time inta qof oo gaaris loo xabaalay dhul daraadeed ma yaro arrintaas waxaa dhigi kartaa maxaa lagu xalin karaa in qof waxaa keenaya arrinta gaaris waxaa keenaya dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda raadsanaya dadka isku kicinaya niman tuuge oo brokayaal oo reer gaaris aan ahayn
oo haddii isinkooda la sii raac xataa la garanayo dadka yihiin oo tuuge oo mooreeyaan oo indigenous aan ahayn baa isku xirmeen nimanka tuugay noqdeen marka waxaasay ka qaraabtaan laakiin taasi waxa istaajin karaa dawladda Kenya istaajin kartaa waliba county-ga istaajin kartaa maxay ku istaajin kartaa county-ga way kala jarjari karaan wax iska fudud waay land waa devolve so devolve county house man county-ga meel county house man yes of course way ka heshin karaan hatta national government way isla wada shaqeyn karaan ministry-ga iyo county-ga way wada heshin karaan waxay dhigi karaan hay come together aan sameeyna kan aan kala jarjarno dhul yes waa jirtaa ay dawladda leedahay national government ay maamulayso laakiin dhulka community land uu yahay aad ba loo xaday dhulkii laakiin waa la xaday meeshii tuuga ka dilaacday dadkii ilaahay kama cabsana dadkiina waxa weyn in kastaba hadduu asaga meel uu saxdo u haasta ciyaalkiisana Nairobi ay joogaan dadka uma naxay a good example is hadda Quba amal magaaladii ba soo gaartay I was the lawyer ana u soo qaaday title deed and I was acting for Quba waxa la gaaray heer Quba dhulka in la dhaca Quba markii meesha la dhisay I think magaalada hata maxay ku ekeed suuqa Boystown Boystown taangiya mar taangida ku ekeed taangiya waxay ku ekeed Garissa wax Garissa Nebgals maxaa xasuustaa ma u lugan jirnay markaas daali jirtay yes way dheeraan jirtay yes true su'aal kala jirtay Orlando yes Garis arintii estate-ka waan ku noqon doonaa real estate-ka yes laakiin maadaama arrimo kale xasaasi oo laga hadina jira aniga gaarsan ku soo koray naam dhul badan baa jira oo aan u arjidna ciyaaraha iyo maaragtay sports-ka ama outing hadda ciid ma la gaara carruurta ma la geynay sorta malaha wax social I mean public utility ma laha public utility public parks ma lahan carruurta meelaha birta ku ciyaarayeen waata dawladda iska leedahay meelo qaar waxa laga in iska xirtay hadda carruurta meel ku ciyaaraan hatta malaha iskuulada laga inay ku ciyaaraan waxaan tagay wadamahan UK oo kale markaan tago arkaysaa meel walba degan waxay qabaan park yes oo carruurta lagu geeyo carruurta ku ciyaaraan oo family iska fariistaan waxa la sameyn karaa two things la sameyn karaa hadalka wada tahay hadda maadaama Garissa ay tahay county-ga xaq way u leeyihiin through what we call through even the national government inay waxa jirta wax la yiraahdo compulsory acquisition in dhul meel kastaba de in certain kilometers ay qofkii guriga iska lahaa ay lacag u celiyaan ay ka gataan ay public ay noqoto carruurta ku ciyaaraan loo sameeyo oo public ay ka noqoto oo loo sameeyo laakiin jidadkii oo meedka lagu qaadi lahayd bay sameyn lahaayeen meel lagu ciyaaro may fahansan yihiin way do they even understand that meel cilmi ilaahay waa nasi ya ilaahay wuu si hal meel bal isku iimaanay isku xiriirinaya maalin baan taariikhiyan ka sheekana maama ayeedii oo Garis yaa rab inaan soo socodsiyo maadaama ay cabar joogtay naam meel aan ku socodsiina meeshii yara wadadana arda Garis laba Garis ma marayso naam yes qofkii 100 waa dhul yes laakiin dhulku wuxuu soo cariirinaya jidkii yes horta ilaahay laga cabsado meesha waa arrimo weyn way duqdi meel aan ku marka wada boodha ku soo gali gaari ku soo gali meel hatta intaan qaado aan intaan geey aan rabal soco heer maxaa ku fikir ka dambe meeshan oo ciid lagu tukado ciid ground jiro maxamuud inaan u tago oo aan dhaho walaalow meeshan ana habayna coos ku abuuray bal dadka duqooshinka sokorta qabaan iyo dadka maartay carruurta iyo bal casir gaabadka intee imaadaan ha ku soo socdaan bal fasaxaysiya harinta aan ku fikiray meel qof ku socodsiin shaqadaas waxay u taalaa county government-yada inay sameeyaan wayna awoodaan inay sameeyaan wax weynna ma waa iska very simple wax basiid ah waay oo la sameyn kara hatta waxa la sameyn kara workbat in loo sameeyo laakiin hatta markii qandaraas la siinayo waxa la siinayaa company aan magac lahayn awood aan lahayn baawur aan lahayn machineries aan lahayn khibrad aan lahayn inuu wax dhis markaas wuxuu sameynayaa carradii bedelku hoos loo qodi lahayo oo system la sameyn lahaa ma sameynayaan taas maxay sameynayeen shamiinda lagu qorsheeyaa dhulkii oo wada rasmi roobku markuu imaadana wixii way dhaqaaqa ilaa wixii foundation ma laha marka nimankan leadership-kaas allaha ma artay ilaahay ka cabsadana and I mean it can be county what you call the women rep it can be the governor it can be the member of parliament uma cadda waxaas dadkina iskood inay wax u qabsadaan baa loo baahan yahay ayakina ma fahansano horta gaas wax ka daran ma arkin waayo Mandheeraan tagay aban planning uu fiican yahay jidkooda yes waa jid wayar waasac yes wajeer sidoo kale at least wayar waasac horta Garis wax ka daran ma arkin farintan waxaan u darayaa dadka ku hadda joogaan yes ilaahna dhaafiyo horta waqtigooda waa dhabaaday yes kuwa hadda oo lalama
أصعده الصعدة هذا إلهي أونسيه أو سوقشين جارس وجير مندرة هذا إلهي نسيجر ومسؤولية إلهي ونيديبه مال every بولو ما عندها every بولو هالو يلو مال public أو مركان دال أنت سكي ماذا سكي في ريسنكر أما عروض تانكين أنا عيار سينكر I think what you will say is هالو ده وجير إير جارس إير مندرة ينندورن قف معركتاي magaalada iyadoo aan la deganeyn oo governor yaa loo dooran hadii loo dooranayo xataa waa qofkii shuruudooyin in la mariyo I mean it's a fact shicibka ay wax ma dareensana miya anaga shicibku way dareensan yihiin laakiin ma fahansana qaarkood wixii wax fahansaneen mudaharaad ma aragna wadi mudaharaad ma andahana wala dhalinyaro inta istaagaan ay dhahan anaga reer gaaris reer wajeer meel aan baloon ku ciyaarna ma haysan waalidiinta istaagaan ma dhahana ciidi hadda ciida gaaris meeshan yaro children bag marta saddex bari baa sugi in carruurtaada geys the only place oo la tagi kara gaaris oo carruurta maga because carruurta maanta ina banaan bixiso maxaa noo diiday meel dhul weyn oo dawladda leedahay oo geedo lagu abuur oo hatta maxaa caawin kara maartay shirkadooyinkan oo maartay dawladda aan ahayn ama bangiyaasha as CSR oo la waraa dhulkan miya geedo ku abuur Equity Bank Barclays geedo ku abuur dhulkii waxaas dhan diyaar bay leeyihiin ummadii dhan baa diyaar leh hatta Soomaaliya ay ka qabsan karaan iskeedu bay wax u qabsan karaan what I'm trying to tell you is it is not their priority ninkan la soo doortay gaaris ma joogo kii wajeer Nairobi degan yahay mana fahansana priority uma aha shicibkana ma sheegan ma sheegna miya ana iska hadlay markaas shicibka waxa waaye dadkan waa dad maskaxdooda baabaaday trauma qabo wareersan way iskala qabsadeen leadership galas biyo daa u shubto ku amaanaa xaqan u leedahay ma fahansan warreebo qoy bariyo ilaahay ka cabsada saana isku dhaana dadkan aan noo keenaysiin walaal ma hadda campaign lagu jira hadda campaign 2 years to go dad afarta taaganay campaign ku jira walaal dad quman noo keena kus lacag way taala meesha lacag way taala 9 billion 10 billion 11 billion hatta 200 million kila hadda made social agili so way ka muuqani war plotki northeastern meequu jooga ka soo qaad qofkii xataa iska basiiba 5 milyan 10 bilooda kugu 5 bilooda kugu filan inaad maartay half an acre inay meel ciyaal ku ciyaaraan meel duqoyd hata ku socdaan nobody laakiin istaalada bandho laga leeyahay inta lagu socona istaalada bandho ma lahan waa sheeka maalin kale aan u soo noqona arintan waqooyi bari iyo dhulkooda iyo leadershipka waa arin horta waa arin u baahan in maartay koob shaah loo soo qaato dadka qurbaha ka yimaada aan u soo noqona real estate yes aad bay u caabadaan waxaana ka caawada in mar walba la dhaca balanta laga qaado lagu ofiyo waxyaalaha adiga aad maartay dad badan oo imitation way jiraan waxyaalaha ka sheegtaan maxaa dadka qurbaha ama see loo dhaca waxay ka sheegtaan okay wallahi dhicitaanka badana waxyaalaha ay ka sheegtaan waxa waaye badana titleladii oo guriga ay ku gateen ma helaan guriga markii la dhameeyo way ku dhib qabaan ilaa qofku uu dhinto qof kala geeriyoonaya ilmihii agoontii wixii waa rafaad problemka u weyn oo nahaastaanaka waxa waaye qofkii title-kii baad ka soo qaadi waad haysaa title-kii wuxuu u dhaxeeyaa 100 qof 100 qofna you can deal with them because 100 qof laga yaabo waxa shakhsiyan aan aqaanin yihiin 10 qof 9 qof ma garanaysid hatta ebadkii ma arkin sax mara imaadeen sel agreement-ka u sameysay wixii mas'uul baa ka tahay marka waxa loo baahan yahay in title-kii conversion lagu sameeyo ka soo qaad title and conversion lagu sameeyno documentation keeda aan la sixina dadkii looma kala jarjari karo ninkii guriga lahaay oo marka hore dadkan guriga ka gaday canshuuraadkii qaarkood muusan bixinin mase architect-kii shaqada u qabtay lacagtii muusan siinin architect-kina approval ku muusiinin se title-kii aad maartay aad ku kala jaraysaa way ku adkaani waa inaad architect kala raadsid mase asaga aad daba gashid asaga de haduusan lacagtii siinin shaqada kuma dhamaynaa asagina dadkii buu kugu soo diray been buu sheegay lawyerkii baa haastaa buu ku leeyahay waa arin maartay aan sax ahayn dadka badib ka caawan qurbaha saan arkay dadka marka waxay inay lacagtina dhameeyeen lacagtii way dhameeyeen gurigan u dhamaanin 2 sano loo qabtay taasna waa mid 5 sano isgaartay taasna waa mid soo guru raba inuu kristo raba taasna waxa keena ninkan guriga dhisaya mise nimankan guriga dhisaya groupka guriga dhisaya saan kuu sheegay marka hore guriga beec uusan ku habboonayn ay ku gadeen guri joogay 10 milyan iyo waxay ku leeyihiin 5 milyan kaashkaas marka ay u cadaay marka wuxuu dhisayaa phase 1 phase 2 phase 3 ka soo qaad bas wuxuu dhisayaa ka soo qaad mahdi
1 mahdi 2 mahdi 3 oo guriga buu dhisaya gurigii wuxuu ka qaatay 5 milyan ka soo qaad gurigan dhismihiisa waxa dhameyn karaa 8 milyan so ninkan he is in a minus of 3 milyan oo shilin at the same time 2 milyan oo gurigan uu leeyahayna guri kale uu geliyay masal dhul kale uu geliyay oo isna uu soo dhisay dad kale uu lacag ka qaaday marka dadku lacagta ka qaaday ka soo qaad waa 200 300 qof okay waxa guriga ka rawaa 300 oo guri mase ka soo qaadba waa 100 laba sano uu qabsaday 2 sano uu qabsaday he cannot deliver marka meeshaas waxa loo baahan yahay in la soo imaado runta la soo sheego where the rain has bit oo runta la soo sheego oo arinta la sax haduu ninkan qalad sameeyay marka dadka qurbaha joogana waxa way dad maartay ma sha Allah fiican oo straight ma garanayaan variation wax baa isbedelay dollar baa kacay ismindadii baa kacday political kan ma jiraan lacagteeda ku sii ama lacagteeda si ama gurigiisa kana variation buu sheeganaa wuxuu ku leeyahay dollarkii baa igu kacay dollarkii baa dhacay kan baa dhacay understand that is where the problem comes from su'aalada u dambeyn joogna dabeeqada bal properties oo Syokimau Eastleigh Parklands South Sea bal in general bal taswiir guud naga sii ha marka guriga dhulka hadda Syokimau dhul baa loo gadaa waxa loo gadaa lacag maybe 4 milyan waagi hore 2 milyan wax noocaas joogi jiray maybe hadda 4 milyan 5 milyan 8 milyan depending on meesha ku yaala guriga meesha kaga sii fog yahay laamiga masana meelaha suuqa ka yaala uu ka sii raqiisan yahay kaas kuwaas dhulkooda waa iska sax Syokimau amal titleada waa okay marka hore waxa la jiray Syokimau nin cadaan baa lahaay cadaankii qolada mukaambada lagu ku wareejiyo oo Syokimau farm 5 acre bay ahaayeen 5 acre baa la kala jarjaray marka kaas title clean baad helaysaa waad gadanaysaa ama guriga dhisanaysaa ama guri dhisan baad ku helaysaa taas Syokimau Syokimau waxa ku dhagan qolay leeyahay Sabaki titleadeeda ma lahan title dhulkaas waxa iska leh company la yiraahdo Numerical Machinery dawladda Kenya iska leh wala iska degay waxa ka sii jira qolal la yiraahdo Portland Cement Portland baa lahaan jirtay oo waagan iskoolka aqrisan jirnay halkaas iyo Machakos wadada mari jirna waxay ahaan jirtay meel dumping site oo ay ka soo guraan macdanta maartay samindada lagu sameeyo taasna waa hore waatii la jijiyo dhulka la mariyay waa ay ka title ku haastaan marka labada qolo in la xiriiro la heshiiyo oo lacag ay ka loo celiyo oo title-ka ay ka laga soo qaato waa in iska fudud taas hadii wada hadal la sameeyo dadkii guriga dhistay waxa jirta waxa la yiraahdo regularization title adigu ma hayso dhulka waa iska degtay waa la heshiinaysa war meeshii baan degnay waa wada heshiis macaamil baad sameynaysin waraaqa la kala qoranayo waa la heshiinaya waxbay ogol yihiin ay karafto dhulkii way ka samareen laakiin kama samar kan dhulka ha gaartay maalin bay qaadanayaan Eastleigh guriga waxa jirta la dhameeyay oo titleadooda diyaar ay yihiin kuwana titleadoodii lawyer baa haya lawyerkii haya la xiriiraya wara lawyer ma haysa title-kan ha guriga ma gadan kara asaa ku saxaya hadii transfer uu yahay transfer uu ku sameeyay haduu asiga ma title-ka hayana kaasaad ku gadan kartaa oo waa sax waxaad sugaysaa oo maalinkii la wada heshiiyo oo title-ka la kala jarjaro soo wax faanta ma South Sea guriga waxaad ka helaysaa oo guriga diyaar u yahay title-kiisana diyaar u yahay kuwa waxa laga yaabaa inaad ka sida Eastleigh amal leh oo hal title qofkii uu haayo oo lawyer mas'uul uu yahay uu haayo oo ku dhaaran karo wixii sax yihiin taasna waxay leedahay macaamilka asaa ku saxaya wuxuu ku siinaa undertaking guarantee buu ku siinaa uu leeyahay guriga anaa gaday anaa dhisay title-kana waa ka uu ku kala cadeynaya taasna wadadaas bay leedahay Parklands sidoo kale Cabdirasaaq mid gaarsan ku celinaya arrinka marka hadda aan ka sheekayna Garis amal in North Eastern waa very simple Garis in North Eastern kan kulligeedba ama Garis Wajeer Mandera waxa loo baahan yahay dawladda Kenya waxba u meeynan qabanin laakiin waxa meesha waxa dhulki surveyed ma aha dhulki in la survey gareeyo oo la kala jarjaro wixii la degaan ahaan loo dega wixii beer ahaan loo sameesto ama 100 acre ahata ama 500 acre ahata qabiil loo bixiya qoys loo bixiya dhulki in la kala jaro wixii la kala jaray wax kalena waxa laga dhigi karaa corridor oo looda ay marto ama geelo oo maro oo reemiga ay maraan waa la kala nadaamin karaa meel waxa laga dhigi karaa elboor meel loo haaji future infrastructure
إن هذا لك لها جاجوا هدي لك لها جاجوا problem كوسي ويننا وكسي درايا مركز the best of the best وإن لقى أذيجي survey of Kenya قولك إلا survey جريوا وحي لو إنه مرتئي جيل أري هالله مريو وحي الدجان هنا الله سماه مدة أنا كهر ما تصنع وحاول تولوين كان فرحة بدن مارت مالك استوى لقى سمينا و political appointment واي و madness و crazy وايو دبا تولو لو سمي سكول مالها عيالكي ما أعرف ستال مالها ما وينكي ماشي بي أنت كو مولان بي كل بحياني كل منايين مركب what have you done for the society بعدين وقصة ودي مقالنا ما دي مركز قوس كستوى بحيث مثل تولو قوس كستوى very wrong waxa waa in la suuqeeno la maajigeeyo la isku daro waa soo tarso loo gaarsiin karo si loo gaarsiiyo wixii markaa iyada macquul gal leh laakiin nin kasta wuxuu leeyahay tuulan sameystay war tuula aba sameysay cilmigeeda ma leedahay tuulo ku maamushay malihid jaahil baa tahay maadi wala diin ma garanaysid waa serious ma qofka noocaas waa qofka dangerous waa qof ma artay wax baabiin kara marka dadkii baa ma artay had u batay inay wax hayaan iyo kuwa qamiisyo soo xiranay wadaadis ka dhigayo tuuge oo wadaadnimada ku qaraabanay diin meel ku bartay malaha madrasa kisaawuni muusan soo marin madrasa oo najaax oo gaaris masana madrasa oo ma artay Nairobi mas halkan Namanga meel soo maray malahan wala Sacuudi wala Soomaali wala Ethiopia wala meel ay Soomaali deganta kitaab xataa muusan soo raacin meel ma artay madaaris kiiba xuska ka dhigaya ma artay inuu wadaadiya arinta gaaris soo galbos gaarsan ka warama badi aadiyad حتى مقالة جيس أو يربحه باور كيستاجست يس هذا وان كهذني يس جيس على غاصو بحه نعم أديات I think أنت سو كيلومتر وحكي أن تتبع ماشى ديجستا أو جيستا وتولون كماشى إذا ديجستي تتبع سيق بصدي تذكر ماشى كان مقالة قفا نيروبي دقيقة وكنترولي كراد الدولة دفيري هدي لوك لك على جرجرة توجد سويك على الرئيسة واي فيري لولك والله كلا جرجري إلا إيو ولا بلانجري يو سيستمايز بيا لجليه يو ستراكشر them very less نقولنا ده كان لولك ربنا كان عصدان commercial people will definitely run away because وحي قدان مهلا يان because أدي لول والو كسي دولة ده كسيسة with your ID you are given 2 plots دولة ده كقدان إيسا ما حتو قدان إيسا دولة ما قدان كرت سو ما قدان كرت لولك صورهم ميسي يبسطه وحيو يبسنين وطلع قلنا سومالي إن أساس أحد السومالي ده فهن سنين إن إنسان ما اسكولا جيران ولو تلاقى له وحنا structured way Somali إن إنسان أرفعت سناته أي title هيسن because توي أديك وحلو تلاقى له دول إن توجد تيت $8 مثلا $20 how دول إن تسيسد العكس سافيك بس اللي قصني أتبع ست you are allocated land for free و everyone also كان قاري إنه plot كيس للسيوان ونولش يسوي باللابان كرم You have a long way to go. You have a long way to go because دولتنا ما سمعينين أديك اللي ربنا سمعستنا ما فهمسني and we don't want to understand ماشي حاجة سامرك إننا محب فهمسنين محب أنك لوجين وسك جاهل وما أرتاي أمين يعني أنا ماشي أسقاسي سنين how to cap سيد اللي هو جاري كرا لوجر رين كرا توجدان لولك غفصنا هيس price كرا دينيسو وإن كاونتي هذا لولك كلا جرجران oo inta voters ka la dhaha waka dhulkaaga ama joog dibadda ama dalka joog ma fahantay nin kastaba he's allocated his plot maxad gaday marka kii tuuga wax gaday muxuu gadi karaa nothing you have a plot oo wada aad u martaad leedahay biyihii aad leedahay meeshii police station ka noqon lahayd waa ka dhakhtarka meeshuu fadhiisan lahay wakaas I mean where will you sit hadda qofa salaad soo kaca baangadu qaadanaya duurku aada meel u soo oodana yes maalinta meesha maraysa loo leeyahay meesha waxa ka haysa anyway arinta waa arin xasaasiya disclaimer all the opinions doesn't belong to the show but the reality is that can waa tuugadana the way to cap them that can jahiliinta hadda good example let me give you dhulka hadda loo sameeynaya Mandera to Northeastern dad waxa jirta jidadkii geedo ku sursurtay hi what is up guriga lama dhisi karo jidka lama dhisi karo waay dadkii baa waxay sugaan compensation jidkii gumara oo adiga hormaad lahayd where are you when did you come to live nothing guri ma kaaga dhisan waa maya geedaha soo gurgurtaa meesha dhigtay and someone is looking for compensation on that I have seen that in Modogashe I have seen in several magaalooyin very wrong I drive all the way
and you just wonder dadkan goormay gaarayaan horumar soo goormay Kenyaanka la qabsan kara ma la qabsan kara absolutely because qalbiga ka dhinteen su-aashan hadda anoo bixinin kii kale anoo bixinin kor magaalooyinka ugu soo noqon aan deganahay gobolka Waqooyi Bari how comes jid oo laba gaar isku daba maraysa ilahan way qofkii 100 by 100 dhul haysta waxa way nin kastaba jidkiina muxuu noqday jidka wuxuu noqday less than 2 meters why wuxuu u noqday there is no survey so cilad kasta waa survey wise period there is no survey has to be done by who because survey by the county or the national government both of them dhul county ay ka iska leed magaalada ay kala inay sameeyaan county capacity ma aha inay ku sameeyaan Northeastern waxa inay loo dhiibay ay tahay the military sidii lagu dhiibay military-ga Nairobi waa uu haastay kii kale ta ninkay dhahan Uhuru Kenyatta oo baadi loogu dhiibay Northeastern waxa kaliya oo ka qaban kara waa GSU survey in loo keeno military-ga loo keeno oo military survey-ga loo dhiibay they will do it perfectly dadka kale county qabiil isku bedel hadan maya county waxba kama qaban karaan capacity ma qabaan they don't have capacity national government حتى لو ما ديباي military قالوا ديباي when the military comes the military will do their work military وعاوي سمايا ما أقنان قدر لو صلاب they will deliver heer maxad gaari saajidka u haysi soo u socday gari aanu noqonaa gurdad lew gal yes because we iska dhistanik because dhulkaas wuxuu ku helayaa asoo isan jooga 200,000 300 500,000 the Garissa town ends in Garissa town that's the reality yes garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed aad iyo aad arrimo badan oo maaragtay aad iyo aad aan baartay oo loo baahnaa in la soo shaaciyo ama bulshada la wadaag ayana la wadaagtay dad badan waxa la isweydiinayeen inay dhul gataan ama guri gataan oo na isweydiinayeen inta ka bilaabaa kullay hadda waa noo sharaxday si wanaagsan waqtigaada aad iyo aad maaragtay qiimaha oo la noo hortayna aad iyo aad aan ka mahadcelinayna aad iyo aad ma santahay inta laga soo xiriiri kara lacalla qofkii u baahan maanta inuu garyaqaan Cabdirasaaq wallahi sharci ahaan lama ogolo lawyer inuu advertisement isku sameeyo taasi they can Google me they can come to the office but of course I can't give my private number laakiin lawyerinta wada siman they can go to any lawyer oo Kenyan they don't need to come to me ma sha Allah ani inay imaadaan muhiim ah muhiimadda waxa waay waa inay sharciga ay raacaan sharciga anaga looma ogolo lawyer inuu advertisement u sameeyo marka waa inaan u sheegno dadka maarta wixii oo civic education oo xaq lillahi aan u sheegno they can go to any lawyer they u baahan yihiin they can Google and definitely find where we are aad iyo aad u masantahay barnaamijka intaas ku soo gabayna barnaamij xiiso badan ayuu ahaa maxaan rajeynayaa in dad badan ay ka faa'iidi doonaan inta ku kulmi doona barnaamij kale oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo laakiin waxaan dardaaran uga tagayaa bulshada Soomaaliyeed haday property gadanayaan ama dhul gadanayaan inay ama guri ay dhisayaan inay maaragtay ay sharciga sidii rabay ay u raacaan ayaga u fiican tahay bulshada u fiican tahay qof walba u fiican tahay inay sharciga ay kaashadaan ayaan ku dhiirigelinayaa aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh